السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa hoyga dhiiranay English Learning Funds qaybtiisa YouTube-ka. halkaas aan soo gelino barnaamijyo kala duwan sida conversational, kelmado, tobigyo, mowduucyo iyo barnaamijyo kale oo xiisad leh. haddaba subscribe noo saar haddii aad nagu cusubtay, haddii aad hore noogu saarneyd qalbiga u sini mahadsanid. waa aniga Abdisaam Muuse Axmed Abdisaam Dhiirane. insha Allah maanta waxaynu qaadan doonaa meaningful sentence, jumladaha aadka muhiimka u ah qofka luqadda Ingiriisiga baranaya isla markaana laga doonayo inuu aad iyo aad magaranaysa xoojiyo. xabadda koowaad, am I wrong or cadan isbiinsan. am I wrong or cadan isbiinsan maanaa waala mise cadan ayaa laga heesayaa. marka qof aad ku leedahay amba qof magaranaysa aad wax dee aanad ka filayn aad uu ku sheego ayaad isticmaali kartaa tan. am I wrong or cadan isbiinsan maanaa waalan mise cadan ayaa laga heesayaa. am I wrong or cadan isbiinsan maanaa waalan mise cadan ayaa laga heesayaa. talabaad, jumlada labaad, the boy is riding the plane. the boy is riding the plane. the boy is riding the plane inanku diyaaradda ayuu fuulayaa. the boy is riding the plane inanka diyaaradda ayuu fuulayaa. riding waa raacitaanka sida gaadhiga iyo waxyaalaha la midka ah, iyo diyaaradda ayaa la yidhahdaa iyo baaskiiladaha ayaa riding la yidhaahdaa waxa inta la raacayo. the boy is riding the plane inanka diyaaradda ayuu fuulayaa. the boy is riding the plane inanku diyaaradda ayuu fuulayaa. jumlada saddexaad, I have to brush up of my English lesson. I have to brush up of my English lesson waa inaan muraajiciyaa casharkayga Englishga ah. I have to brush up of my English lesson waa inaan muraajiciyaa casharkayga Ingiriisiga ah. jumlada afraad, you have not the capability. you have not the capability waa awood. you have not the capability to be first one in your class. you have not the capability to be first one in your class ma lihid awood aad ku noqon kartid qofka koobaad ee galaaskiina. yacni qof baa magaranaysa aad ogtay weaknesskiisa iyo inaanu ku fiicna casharada iskuulka, aanu waxba xafidi karayn. marka runtii adoo u sheegayaad sidan oo kale odhan kartaa, you have not the capability to be first one in your class. you have not the capability to be first one in your class ma lihid awood aad ku noqon kartid qofka koobaad ee galaaskiina. waa yahay tashanaad, he is trying to adapt to the new life. wuxuu isku dayayaa inuu la qabsado nolosha cusub. he is trying to adapt to the new life. wuxuu isku dayayaa inuu la qabsado nolosha cusub. he is trying to adapt to the new life. wuxuu isku dayayaa inuu la qabsado nolosha cusub. waa qof bukaan ka soo kacay, qof magaranaysa jeel ka soo baxay ayaad u isticmaali kartaa jumladan. he is trying to adapt to the new life. wuxuu isku dayayaa inuu la qabsado nolosha cusub. waa yahay jumlada lixaad, put it down hoos u riix. put it down hoos u riix qof baad wax u tilmaamaysa isla markaana qofkaasi inaad u tilmaamto kelmadda ma ka xigta. put it down hoos u riix. put it down hoos u riix. jumlada toddobaad, the donkey was pulling the cart all the day. the donkey was pulling the cart all the day. dameerku wuxuu jiidayaa gaadhi dameer maalintii oo dhan. the donkey was pulling the cart all the day. cart waxaa la yidhaahdaa gaadhi dameerka. marka the donkey was pulling, dameerku wuxuu jiidayay the cart gaadhi dameer all the day maalintii oo dhan. insha Allah mar aan ku sii celiyo xabadda koobaad, am I wrong or cadan isbiinsan maanaa waalan mise cadan ayaa laga heesayaa. am I wrong or cadan isbiinsan maanaa waalan mise cadan ayaa laga heesayaa. jumlada labaad, the boy is riding the plane inanku diyaaradda ayuu fuulayaa. the boy is riding the plane inanku diyaaradda ayuu fuulayaa. jumlada saddexaad, I have to brush up of my English lesson waa inaan muraajiciyaa casharkayga Englishka ah. I have to brush up of my English lesson. brush up waa muraajacayn, revise bay la micno tahay. waayo kelmadda afraad, you have not the capability to be first one in your class. you have not the capability waa awood, to be first in your class, to be first one in your class ma lihid awood aad ku noqon kartid qofka koobaad ee galaaskiina. jumlada shanaad, he is trying to adapt to the new life. wuxuu isku dayayaa inuu la qabsado nolosha cusub. he is trying to adapt to the new life. wuxuu isku dayayaa inuu la qabsado nolosha cusub. jumlada lixaad, put it down hoos u riix. put it down hoos u riix.
jumlada toddobaad the donkey was pulling the cart all the day the donkey was pulling dameerku wuxuu jiidayaa the donkey was pulling dameerku wuxuu jiidayay the cart gaadhi dameerka all the day maalintii oo dhan insha Allah subscribe noo saar haddaad nagu cusubtay haddaad hore noogu saarneed qalbiga kaa ogsanay mahadsanid insha Allah haddaba waxaan sidoo kale insha Allah waxaan sameynay dhawaan page aan ku leenahay TikTok kaas oo aan soo gelino sheekooyinka qisooyinka waxyaalaha yar ee 2 minute soconaya qisooyinka 2 minute soconaya kuwaas oo aan ku soo turjumo Ingiriisi aan ugu sii turjumo Soomaali ahaan haddaba saad uga faa'iido kelimado badan iyo magaraansa debateska ay kala duwan ee magaraansa Ingiriiska lagu sameeyo sida kuwan caananka motivationalka saad uga faa'iido subscribe halkaan nooga sar iyo followda insha Allah ku yaa page-ka TikTok mahadsanidin thanks